asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta ugu horeysa ee taxnaha sirdoon ee ku saabsan Shulamit Cohen Kishik ama Lu'lu'i Muusaad. Jaajuusadani magaceedu waxaa loogu yeedhaa Shulamit Cohen Kishik, laakiin waxay dadka u yaqaanaan Shula Cohen. waa jaajuusadii ugu halista badneed ee ka howlgasha wadamada bariga dhexe. waxaa qoray Xaatim Khuuri waxaana tarjumay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. waxaan filayaa inaad sheekadan aad ka ogaan doontaan macluumaad ku aadan isbahaysiga hay-adda sirdoon ee Muusaad iyo howlgalla ay ka samaysay gudaha dalka Lubnaan. qisadana waa qiso dhab ah ku saabsan jaajuusnimada howlgalka sirta iyo qiyaamooyinka gabadha lagu magacaabo Shula Cohen oo ay ka geysatay dowladaha bariga dhexe. waa qisadii gabadhii Yahuudiyadda ahayd taasi oo shirqoolla halis badan ka geysatay qaar ka mid ah wadamada Carbeed, iyada oo adeegsanaysa kaarta kasta oo ay ku suurtagelin kartay sida hubka, lacagta iyo gabdhaha suuradda qurxoon ee u adeega sirdoonka Yahuudda. qisadan waxaan idinkula wadaagaynaa si ay taariikhi ugu noqoto jiilka haatan jira iyo sidoo kale kuwa soo socda inay ogaadaan, taasi oo ah qiso laga soo manguuriyey kaydkii baaritaanka ee Shulamit Cohen iyo hay-adaha sirdoonka ee dalka Lubnaan. waxaana filayaa inaad wax badan aad ka ogaan doontaan. sababta sheekooyinka howlgallada sirdoon ee Muusaad aan idinkula wadaagaynana waxay tahay inaad ogaataan macluumaad ku saabsan dhagaraha ay hay-adaha islaamka ay u dejiyaan iyo qaabka ay u shirqoolaan dadka islaamka ah, halkaas oo ay ummadda islaamka ka baran karto cashiro dhowr ah. sheekadani waa mid ka mid a kuwa ugu muhiimsan ee ka hadlaya howlaha basaasnimada iyo sidoo kale jaajuusnimada iyo doorka ay ka ciyaartay wakaaladda sirdoonka ee Yahuudda ee loo yaqaana Muusaad. waxaana sheekada buuggan si toos ah looga qoray faylkii baaritaan ee ciidamada Lubnaan ay ku sameeyeen Shulamit Cohen sanadkii 1961. waxaana uu si toos ah uga warbixinayaa nolosha jaajuusadda iyo shabakadii sirdooneed ee ay lahayd. shabakadda Shula Cohen ay lahayd shakhsiyaadkii ugu howlgeli jira waxa ay ka koobnaayeen koox dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Lubnaan, waxaanay ahaayeen sirdoon u adeega Yahuudda islamarkaana damiirkooda, qowmiyadooda iyo sharaftoodiiba iibsaday iyaga oo shilimaad yar siistay. waxaana shabakadan lagu tiriyaa misna la aaminsan yahay inay tahay shabakadii ugu horeysay u adeegta danaha Yahuudda islamarkaana ka howlgasha dhulka Lubnaan. Lubnaan waxay ahayd wixii ka horeeyay sanadkii 1958 ilaa 59 ka hor inta uu Generaal Fuad Shahab uusan la wareegin xilka madaxtinimada ee dalkaasi. xarun ay sirdoonka Yahuudda sida ay doonaan ay u maamushaan, waxaana sirdoonkaasi u suurtagelayay in ay askarayaan koox Lubnaaniyiin ah, waxaana ay qayb ka ahaayeen dadkaasi u adeegi jiray shabakadda Yahuudda shakhsiyaad caan ahaa oo iyaga oo Yahuudda iyo dadkaasiba ay ku indhasaabeen hanti lixaad leh, gabdho qurux badan iyo arrimo kale, waana kaarta Yahuudda ay si weyn ay u yaqaanaan. hase yeeshee generaalkii wadaniga ahaa ee Fuad Shahab, kaasi oo si indhala-aan u aaminsanaa qowmiyadda Lubnaan, markii uu madaxweyne uu ka noqday dalkaasi waxa uu xooga u saaray bilowgii xukunkiisa sidii uu dharbaaxooyin culus oo ula heli lahaa jawaasiista ay reer Lubnaan kuwaasi u adeegaya danaha Yahuudda islamarkaana magaalada Beirut ka dhigtay meel ay ka buuxaan kaadiriinta Yahuudda iyo shirqooladoodaba. wuxuu soo saaray nidaam uu ku amrayo saraakiishiisa kuwii ugu firfircoonaa oo kala ahaa Sami Khadib, kaasi oo markii dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka Lubnaan noqday, isagoo ugu sii dallacay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Lubnaan iyo sidoo kale Anwar Saad oo madax u ahaa guutada labaad ee sirdoonka dalka Lubnaan iyo sidoo kale Gabriel Lahdoud iyo sidoo kale saraakiil kale, kuwaas oo wadaninimada iyo daljaceylka ay ka buuxday suurtagalna aysan ahayn inay dalkooda cadowga ay ka beeciyaan. waxaana saraakiishaasi ay u howlgaleen sidii gacanta ugu soo dhigi lahaayeen jaajuusiinta dalkooda iibsaday. madaxweyne Fuad wuxuu dareemay halista Yahuudda ee caalamiga ah iyo damaca Israa'iil ee dhulkororsiga, waana halis ilaa iyo maanta ay ku hayaan islaamka iyo muslimiinta. sidoo kalena wuxuu go'aansaday inuu dharbaaxada uu kala hormaray isagoo dharbaaxadii koowaad la helay shabakadii Shulamit Cohen. sida ay dharbaaxadaasi ku dhacday buugga ayaa ka hadlaya. buuggan waxaa kaloo uu ka hadlayaa guushii weyneed ee Lubnaan ay ka gaartay shabakadii ugu weyneed ee Yahuudda ay ku lahaayeen waddanka Lubnaan, waana shabakadii hogaankay u haysay naagtii Yahuudiyadda ahayd ee Shula Cohen. shabakadani waa sheeko qariib ah misna dhif ah oo nooceeda oo kala la helo, waxaana daaha ay ka qaadi doontaa halista nidaamka sirdoonka Yahuudda ee Muusaad. sidoo kalena waxay tooshka ku ifin doontaa howlgallada sida joogtada looga fuliyay qaar ka mid ah dhulalka Carbeed islamarkaana islaamka lagula dagaalamo. sidoo kalena waxay sheekada buuggaani ay ka warrami doontaa damaca Israa'iil ee dhulballaarsiga aasaaska u yahay. shabakadda aan ka hadlayno waxay ka kooban tahay koox Lubnaaniyiin ah oo caawin jirtay gabadha aan sheekadaani kaga hadlayno ee Shula Cohen. waa gabadhii Israa'iil ee ku tilmaamtay misna ay u bixiyeen jaajuusadii number 1 ilaa heer ay ugu yeeraan luul aan la heli karin.
waxay yahuudda u fulin jirtay howlgallada la midka kuwa aan maanta filimada sirdoonka ee Hollywoodka aan ka daawanno, iyada oo warbixinno sir ah u gudbin jirtay. Sidoo kalena waxay dadka u dhashay yahuudda si qarsoodi ay kaga soo tallaabin jirtay xuduudda Lubnaan ay la leeyihiin. waxay farsameyn jirtay baasaboorada bugta ah misna kuwa runta laga aqoonin, iyadoo xitaa hanti badan si qarsoodi ah u tahriibin jirtay, waana hanti gudaha wadanka Lubnaan laga bixinayo dibaddana loo gudbinayo. gabadhan waxay xarumo ay ku lahayd shirar qarsoodina ay ku qaban jirtay meelo ay ka mid yihiin Qubrus, Talyaaniga, Tel Aviv iyo meelo kale oo badan oo sheekada aan ku arki doonno. sheekada gabadhani waxay soo bilaabatay sanadkii 1948 markii ay yahuudda qaab shirqool ahaan ay kula wareegtay dhulkii Falastiiniyiinta. haddaba inta aanan bilaabin ka hadlidda shabakada Lubnaan ka howlgali jirtay ama danaha ay yahuudda u adeegi jirtay, taasi oo la aqoonsan yahay ilaa maanta inay tahay shabakadii ugu weyneed ee yahuudda ay ku dhex samaysatay dhul carbeed, sidoo kalena daakafaydideeda ay gilgishay dowladii yahuudda iyo sirdoonkoodii Muusaadba, waxaa lagama maarmaan ah inaan tooshka aan ku ifinno sheekada gabadha madaxda ka ahayd shabakadan ee Shulamit Cohen. gabadhan caqliga iyo quruxda isku darsatay waxa ay deganeed xaafadda la yiraahdo Waadi Abu Jamil oo Lubnaan ah, iyada oo qof caadi ahayd misna shacab ka ahayd goobta, ilaa markii dambe ay noqoto xaakimkii xaafadaasi, amarkeeda kaliyana uu ka shaqeynaya xaafadda. waxaana muddo kooban ay noqotay gabadha ugu awoodda ballaaran isla markaana caasimad isaga kala gooshta, iyada oo sirdoonka yahuudda ku quudinaysa warbixinno sir ah oo kala nooca. hase yeeshee sirdoonkii Lubnaan ayaa habeen iyo maalin u soo jeeday sidii wadankooda amni buuxa u noqon lahaa, xuduudoodana ay u ilaashan lahaayeen. ugu dambeyntiina waxay ogaadeen qaabkii ay usoo dhammayn lahaayeen filimkii Shola Cohen iyo kooxdeedii jilayaasha ka ahaa. waxaa u suurto gashay sirdoonka Lubnaan inay hab caqli iyo xeelad ay ka buuxdo ay gacanta ugu soo dhigaan shabakadaasi halista badneed, islamarkaana ay cashir weyn ay u dhigaan Muusaadka yahuudda. sheekadani waa mid taariikh rasmi ah oo dhacday, sidaasi daraadeed bal aan isla ogaano sida uu howlgalkaasi oo cadowga yahuudda u dhacay, islamarkaana aan wax ka ogaano qaybihii foosha xumaa misna raqiista ahaa, taasi oo danahooda ay ugu adeegayeen. waxaan ku hormari doonaa waa tuma Shulamit Cohen ama Shola Cohen. Shola Cohen oo loo yaqaano Lu'li Muusaad, sidoo kalena ah jaajuusadii kaalinta koowaad ka soo gashay ee u shaqayn jirtay sirdoonka Muusaad, waxa ay ku barbaartay dalka Lubnaan, gaar ahaan caasimadiisa Beirut. waxay ka deganeed xaafadda yahuudda ay ku badan yihiin ee loo yaqaano Waadi Abu Jamil. xaafadda Abu Jamil waxay ahayd xaafadda ay ku badnaayeen isla markaana ay deganaayeen yahuudda Lubnaan. waxay ugu noolaayeen xaafadaasi sidii dad ka go'doonsan shacabka kale ee reer Lubnaan, mana aysan jirin wax falgal ah oo ay la wadaagaan bulshooyinka kale. dadka degan Waadi Abu Jamil ama xaafadda yahuudda ee Beirut ku taalay waxaa ka buuxay sira aad u badan, waxaana ay ahayd xaafad iyada oo dhan aad moodo hal xiraale, iyada oo dadka ku noolna ay xiqdi iyo nacayb badan ay u qabeen carabta iyo muslimiinta. Shola Cohen waxay ahayd tan iyo yaraanteedii mid lagu soo barbaariyay xiqdigaasi iyo nacaybka, waxaana ay si joogto u maqli jirtay in Falastiin ay tahay dhul yahuudda ay leedahay, islamarkaana ay noqon doonto dhulkii ay yahuudda dowlad weyn ay ka aasaasi lahayd, islamarkaana ay gacanta ku wada dhigi lahaayeen. Shulamit Cohen markasta oo ay soo weynaataba waxaa quud looga dhigi jiray afkaarta iyo tacliinta la xiriirta nacaybka islaamka iyo muslimiinta iyo sida ay halis ugu yihiin jiritaanka yahuudda. waxaana afkaartaasi ay markasta ay ka maqli jirtay ajantiyada yahuudda ee iska dhigaya sida inay yihiin dad xuquuqdooda iyo wadankooda u dagaalamaya, balse sida waaqiciga ah waxay ahayd gumayste xoog ku haysta dhul dad masaakiina ay lahaayeen, iyaga oo magacaabidii iyo sidoo kale masaajidii islaamka ay u bedeleen kalaabyo iyo xarumo qamaarka lagu iyo wax kasta oo fisqi iyo macaasi ahaaba. Shola Cohen oo afkaartaasi ku barbaartay islamarkaana si dhaba u aamintay ayaa markii ay soo barbaartay waxaa durbe ay bilowday in iyadana jiilka ka dambeeya u sii gudbiso, iyada oo xoogga saartay xaafadii magaalada Beirut ee ka deganeed inay afkaartaasi ay ku faafiso. sidoo kalena waxay isku dayday inay awoodooda ay ku ballaariyaan dhammaan yahuudda degan xaafadaasi, islamarkaana iyada ay u wada taliso. Shola Cohen waxay bilowday inay adeegsatay islamarkaana isku keento gabdho aad u qurux badan, waxaana gabdhahaasi uga caansanaa Rashil, Fartuniya, Sarina iyo Jamila. waxaanay gabdhahaasi ay ku guri jirtay afkaarteeda, balse waqtigaasi fikradaha jaajuusnimo iyo arrimo kaleba weli maskaxdeeda ma aysan soo gelin, mana aysan bilaabin wax howlo basaasnimo ah. markaana aan eegno guurkii Shulamit Cohen.
waqtigaas oo ay Shulaamid Cohen ay noqotay gabadha ugu quruxda badan xaafadda misna ku riyoota riyada uu qof walba oo Yahuuda ku riyooda ee ah in maalin uun gacanta ay ku dhigaan dhulka Carabta, waxay isbarteen nin lagu magacaabo Yusuf Kashka. Wuxuu ahaa ganacsada dharka iyo waxyaabaha la midka ka ganacsada. waxay muddo badan sheekaystaanba Shula Cohen iyo Yusuf misna afkaartooda iswaafaqdo. Ugu dambeyntii guur ayay ku ballameen, iyagoo ugu dambeyntii isguursaday dhowr caruur ahna isku dhalay. caruurta ay Shula iyo Yusuf isku dhaleen oo gabdha ahaa waxaa dhacday in Shula Cohen ay u adeegsato howlgalladeeda ay caanka ku noqotay, waxaana ay gabdhahaasi caan ka noqdeen xaafadda Abu Jamiil. ka sheekaynta gabdhaha Shulaamid iyo gabdhihii kale ee howlaheeda ka caawiyay waa sheeko aad u dheer, waxaana Shula Cohen markasta ay ahayd mid ku tiirsan cunsurka dhidignimada iyo lacagta ay sida caqliga uga xado sirdoonka ay dagaalka kula jirto. sidaas daraadeed waxay kireysatay dhowr guri oo si heer sare loo goglay, iyada oo u bedeshay goobo habeenkii lagu caweeyo. waxayna goobtaasi xarun ay ugu dhigtay shabakadeeda, taasi oo markii dambe gebi ahaanba gacanta lagu soo dhigay misna xabsiga lagu guray. ka hor inta aysan Yahuuda u noqonin Shula Cohen jaajuusada koowaad, waxaa jirtay howlgallo si qarsoodi ah loogu xaluulin jiray dhulka Falastiin, iyada oo laga talaabayo xuduudda ay Lubnaan ay la leedahay dhulkaasi, gaar ahaan xuduudda koonfureed oo ay la leedahay Falastiin. taasi wax cusub oo Shula ay bilowdo ma aysan ahayn, hore ayay u jirtay, balse shabakada Shula Cohen kaliya shakhsiyaadka caadiga ma aysan tahriibin jirin, sidoo kale waxay tahriibin jirtay badeecooyinka kala duwan iyo shakhsiyaadka darajada sare leh. mid ka mid ah dadkii shabakadeeda qayb ka ahaa oo hadlay xilligii baaritaanka uu socday kadib markii shabakadani gacanta lagu dhigay, waxa uu sheegay in ujeedada shabakadani loo dhisay inay ahayd samaynta jawi siyaasadeed kaasi oo u gogol xaaraya guud ahaan danaha Yahuuda ee gobolka. sheekada shabakadani waa sheeko Shulaamid Cohen, taasi oo markii ugu horreysay ka bilaabatay tarjumida dhambaalada Carabiga ah in ay luuqadda Cibriga ah ee Yahuuda ay u bedesho, kuna soo dhamaatay inay noqoto jaajuusadii koowaad ee Yahuuda ay yeeshaan, misna ay ugu magac dareen luul aan la heli karin. haddaba maxay tahay sheekada Shula Cohen? sidee ayay ku bilaabatay? sidee ayay shabakadani u shaqayn jirtay? sidee lagu ogaaday? muxuuse ahaa doorka qof kasta oo shabakadani qayb ka ahaa? muxuu ahaa kaalinta dumarka quruxda badan ee shabakadani ay ku lahaayeen? dhammaan jawaabaha su'aalahaasi qaybaha sheekadan ayaad ku ogaan doontaan. aan ku hormarno bilowgii 48dii iyo Beirut. xaafadda Yahuuda ay ka deganaayeen caasimadda ee waddanka Lubnaan ee Beirut, taasi oo lagu magacaabi jiray Waadi Abu Jamiil, waxay ahayd xaafadda ay ka dhisnaayeen guryo qadiimi ah una dhisnaa sidii guryaha isku raranka oo kale, kuwaasi oo aad moodo in la iskor saaray. Shula Cohen waxay waqtigaasi ay ahayd gabar dhalinyaro ah misna aad u qurux badan, taasi oo aysan dhalinta xaafadda marnaba indhaha ka qaadin, balse iyada indhahaasi soo wada eegaya waxdana kama aysan lahayn waqtigaasi, waxayna iska wadan jirtay nolosheeda iyada oo u noolaan jirtay qaab kasta oo ay rabto. waxay habeen kasta ay ku dhafri jirtay goobaha lagu caweeyo, maalintiina lagama waayin jirin xeebaha iyo sidoo kale goobta loo baashaal tago, waxaana ay xiran jirtay dharka noocii ugu dambeeyay misna quruxda badan ee jirkeeda soo saaraya guud ahaanteed. Shula Cohen waxay ahayd mid gabdhaha filkeeda ah ay xorriyad ahaan ay ka horeysa 10 sano, iyada oo si xor ah u noolaan jirtay. goobtii ay doonto ayay tegi jirtay, ciddii ay doonto ayay u tegi jirtay, habeenkii ay doontona waa ay caweyn jirtay, mana jirin cid la xisaabtami jirtay. yacni waxay ahayd meeshaasi inaad ka fahmaysid inay guud ahaanteedba ahayd gabar xorriyad nooc kasta haysatay marka loo fiiriyo xilligii ay sheekadaani ay dhacday. gabdhaha Yahuuda waqtigaasi waxay ku tartami jireen sidii ay u heli lahaayeen rag darajooyin sare leh, gaar ahaanna kuwa hantiilayaasha misna dabaqada sare ka soo jeeda, balse Shula Cohen ayada ayay ragga ku tartami jireen, gaar ahaanna kuwa dabaqada sare ka soo jeeda. Shula Cohenna sabab kasta oo nin ragii uu tartan ugu soo galo waa ay lahayd. waxay ahayd gabar caqli badan oo qurux badan, fankana jecel, si weynna u jili taqaana, haasaawahana looga haray. intaasi waxaa usii dheeraa inay ahayd qof xor ah oo xakameynteeda aysan jirin qof ku mashquulaysa. Shula Cohen sidoo kale waxay ahayd xariifad taqaana sida ragga loo soo jiito misna lagu qasbo inay har iyo habeen ay ka daba jiitamaan. waxay sidaasi ay ku noqotay gabadha ugu caansan xaafadda Yahuuda, waxaana gurigeeda looga qaadi jiray gawaarida noocii ugu dambeeyay. casuumaadda maalin kasta loo fidiyay kala joogsi ma aysan lahayn, xafladahaba xafladii ay ka maqnaato mid nuur ahba inaysan ahayn ayaa loo qaadan jiray. sidoo kalena waxaa hore aan usoo sheegnay in waxaasi oo dhan ay dan iyo heelle aysan ka lahayn, balse waxay ahayd mid nolosheeda iskaga nool, habeenkii ninkii ay doontana ay la socoto, halka ay jeceshahayna ay aado.
inkastoo nolosha noocaasi ay isaga nooleed haddana waxay ahayd yahuudiyad mayal adag islamarkaana marnaba maankeeda kama uusan bixin afkaartii sumaysneed ee lagu soo barbaariyey waxaanay markastaa u janjeeri jirtay dhanka siyaasadda iyadoo arrinta keliya ee walwalka ku haysay islamarkaana ka murjin jirta ee ahayd sidii ay qowmiyadda yahuudda uga caawin lahayd in ay guul ay ka gaaraan qadiyadda falastiin. Shulamit Cohen markii muddadaasi ay ku jirtay waxay isbarteen wiil dhalinyaro yahuudi ah oo lagu magacaabi jiray Leon. Leon wuxuu ahaa wiil aad u dheer misna feero weyn oo midabkiisa caddaan uu yahay timihiisa ay hurdi ay yihiin waxaa intaasi usii dheereed inuu ahaa wiil dhankiisa markastaa isha ay ku hayaan gabdhaha xaafadda Waadi Abu Jamiil ee magaalada Beirut. Leon waxa uu ka mid ahaa maafiyada xaafadda oo cid kasta ay ka heybeysato kana cabsato sidaas daraadeed arrin iska dabiici ah ayay ahayd in Shula Cohen dhankiisa u jarjeersato. Waxaa dhacday in Shula Cohen ay jacayl ay u qaaday Leon iyada oo ka dhigtay saaxiib aanan marnaba gurigeeda laga waayin halka isagana uu noqday gaashaan difaac u ah isla markaana afka uu jabiyay cid kasta oo isku dayda in ay iyada ay hor istaagto. Hase yeeshee sidaan horey u soo sheegnay Shula Cohen ma aysan ahayn gabar la xakameyn karay misna nolosheeda kaliya hal nin ay ku koobneed inkastoo Leon ay wada socdeen haddana sidaas oo ay tahay waxay saaxiib la ahayd tobaneeyo rag ah oo isugu jiray ganacsato ajaanib iyo sidoo kale rag dabaqooyinka sarsare ka soo jeeda balse isla markaana Leon waxa uu ahaa nambarka koowaad oo saaxiibada saaxiibka ay ugu jeceshahay inta badan ay ku tiirsan tahay. Shula waxay ogaatay sida ay farta uga walaaqi karto caqliga Leon waxaanay markasta ay siin jirtay jacaylka iyo muxibada ay u baahan yahay isaga iyadoo oo gurigeedii ku ballansan jirtay iyadoo sidoo kalena sida uu doono waqti ula qaadan jirtay. Leon wuxuu noqday wiil qalbigiisii inta badan uu aado Shulamit Cohen waxaana lagu arkayay in uu mar walba ku dhawaaqayo magaceeda balse xiriirkii Shula iyo Leon majara kale ayuu isu bedelay kadib markii maalin uu Leon ugu yimaaday gurigeeda. Shula iyada oo aad u careysan ayuu u yimid isla markaana uu karkarayo wuxuuna Shula u soo bandhigay laba arrin midkood tan koowaad oo ah inay isaga gooni u noqoto ama tan labaad oo ah inay u go'do saaxiibadeedii kale oo uu ka masayray. Shula Cohen markii labadaasi arrin la kala dooransiiyay si degan ayay u weydiisay Leon oo waxay tiri maxay tahay arrinta aan ku raali gelin mar walba haddii aad helayso aniga waqtiga iyo saacadda aad doontaba. Leon oo weli sidii u careysan ayaa Shula ku yiri wax badan ayaan fikiray waxaana go'aansaday inaan ku guursado adiga oo dhan aniga aad igu koobnaato marka adiga waa inaad haatan go'aan qaadataa. Shula Cohen oo markaasi dhoolla cadeen yar ay ka muuqato ayaa waxay Leon ay ku tiri waxaan qasab inaad fahantaa inaan aniga xambaarsanahay dhambaal halis badan kana halis badan guurka. Leon oo aan waxba ka fahmin hadalladii Shulamit Cohen ayaa waxa uu yiri kuma fahmin maxaad kala jeedaa arrintaas. Shula Cohen oo markale dhoolla cadeyne ay ka muuqato ayaa Leon waxay ku tiri Leon waa inaad fahamtaa duruufteyda kadibna aniga kuu sheegaya wax walba waxaana markaasi aan doonayaa inaan noqoto garabkayga midig misna aad igu caawiso dhammaan howlahayga una adeegtid qadiyadda Israa'iil isla markaana qayb aad ka qaadatid dhismaha dowladnimada Israa'iil. Shula Cohen waxay xilligaasi isaga dhigtay Leon naag u adeegaysa danaha reer Israa'iil raggaasi tirada badan ay la kulmaysana waqtiga ay ka luminayso. Leon oo qudhiisa ahaa cunsuri yahuudi ah ayaa xoogaa aamusay sidii in uu fahmay waxa ay Shulamit Cohen ay ka hadlayso markaas ayuu farxad iscelin waayay kadibna uu gudagalay inuu magaceeda uu ku hadaaqo Shula 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 isaga oo gacanta ka dhunkanaya balse hadalladiisii qaylada ahaa sii wata ayay baashi afka ah qayladiisii ku aamusisay xilli Leon uu aad u faraxsanaa. Sheekadii jacaylka isaga iyo Shula Cohen ka dhaxaysana qalbigiisii waxa ay noqotay mid ku dhexdanta wuxuu noqday mid isaga qanca xoogaaga yar ee lacag ahaanta u siiso taasi uu ku heli karayay howlo uu qabto uguna horeyso in iyadoo u fududeeyo ballamada ragga kale ay la leedahay. haddaba mar haddii jacaylkii Leon uu halkaasi ugu damay waxaa qasab ahayd Shula Cohen inay samaysato jacayl kale kaasi oo isagana maslaxadeeda gaarka u ah ay ku wadato waxaana ay toogtaani ay liishka ay saartay dalxiisho u dhashay dalka Mareykanka. dalxiisahani Mareykanka u dhashay wuxuu ahaa nin hantiile ah waxaana si lama filaan ugu kulmeen hoteelka lagu magacaabo Aslan George waxaana Shula durbadiiba ninkaasi ay ku soo jiidatay dhoolla cadeyn iyo daymo soo jiidasho leh iyadoona ninkii dalxiisa ahaa aanan siinin wax fursad ah oo isaga caawiya daymadeeda iyo dhoolla cadeynteeda quruxda badan wuxuuna durbadiiba ugu kiriyay hoteelka lagu magacaabo Al Normandi qaybta VIP-da
waxaana hoteelkaasi ka bilowday ciyaartii Shule Cohen ee jacaylka beenta ahaa misna maslaxadeedii ay ku wadatay waxaana ay ninkaasi muddo yar uga qaadatay hanti gaaraysa 15,000 oo liiro oo lacagta Lubnaan ah kadibna garoonka ayay ka soo gootisay iyada oo kulan dambe ay ku ballameen habeenada ka mid ah sanadkii 1948 xilli shirqoolkii dhulka Falastiiniyiinta lagula wareegay uu galay marxalad gabagaba ah ayaa Shule Cohen looga yeeray xaflad ka dhacday hoteelka Al Nurman waxaana ay ahayd xaflad daansi ah ama ciyaar qoobka ciyaar ahayd oo aad u weyn Shulena waxa ay tagtay goobtii xafladda iyada oo xiran saaka madow misna ay soo saaraysa qaybaha ugu muhiimsan uguna quruxda badan jirkeeda sidoo kalena tinteedii dheereed ayay qurxisay oo waxay ku qurxisay ubaxyo gaduudan kaasi oo Shule Cohen u siyaadiyay quruxda iyo soo jiidashada iyadoo ragga oo ida Shulamit Cohen ay ku mashquulsanaayeen haddana waxaa jiray mid ka mid ah ragga xafladda ka soo qayb galay kaasi oo aanan marnaba u soo dhawaanin Shulamit Cohen balse kor kala socday dhaqdhaqaaqeeda oo idil si weyn isha ugu hayay sidii inaadba moodo inuu neefteeda uu xitaa xisaabinayo halka ay noo joogto qaybta koowaad ee macluumaadkeena ku saabsan Shule Cohen aragtidaada inoogu reeb qaybta hore sida aad u aragto sheekadaani iyo macluumaadka ku duugan waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdiraxmaan Xasan Anteeno oo sheekadaani tarjumay